maanta waxaan u safraynaa oo aynu dul istaagaynaa mid ka mid ah dalalka ugu caansan uguna baaxadda weyn Afrika, dalka ay taariikhdu dheer inaga dhaxayso haddaan nahay Soomaali, maadaama uu hardan adagna dhex yaalo qarniyo tagiyo ilaa maantadan aynu kala qoqobannahay. Ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan dhulkii Xabashida ama Itoobiya. sida aan ogsoonahay, Itoobiya waa dal dhaca bariga Afrika, waana dalka 27aad ee ugu weyn bad ahaan caalamka, kaasoo fidsan 1,104 kiilomitir isku weeran ama 426 kiiloomayl oo balac ah. sidoo kale waa dalka 12aad ee ugu dadka badan caalamka iyo dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan, waxaana ka dad badan Nigeria oo kaliya, inkastoo xogaha Carbeed ay Masarna ka hormariyaan. inaguna ma ka hormarina anagoo ka jarayna dadka Soomaali galbeed oo ay tirada ku darsadeen. nidaamka waa mid jamhuuriya oo federaali ah. diinta rasmiga ah ee dalkana waa Kirishtan, ayadoo ay xusid mudan tahay in lagu sheegay dadka muslimiinta ah ee dalkan inay yihiin 3 meelood meel. luqadda rasmiga waa luqadda Amxaarada, halka lacagta rasmiga ah ee dalkana ay tahay Ethiopian bir. Itoobiya waxay dawlad noqotay sanadkii 980kii dhalashadii Nabi Ciise ka hor, waana mid ka mid ah dawladaha ugu qadiimsan caalamka. kalandarka ama bilaha sanadka Itoobiya waa mid ka kooban 13 bil. bisha 13aadna kama badato 5 ilaa 6 maalin, waxayna u yaqaanaan maalmaha qorxaysan. Itoobiya waxay ka dambaysaa kalandarka caadiga ah 8 sano, waxayna qarnigan ama 2000 ay u dabaaldegeen markuu sanadku inoo ahaa 2008. guurka degdega ah ama yaraanto lagu guursado waa mid ku badan Itoobiya, waxaana la qiyaasaa 5tii dumar in mid kamid ah ay ku guursatay da' ka hooseysa 15 sano, halka 5tii dumar ay 2 kamid ah ku guursadeen inta aysan gaarin 18 sano. waxay ku hadlaan dadka dalkan in ka badan 80 luuqadood oo kala duwan. waxaa laga helaa 9 goobood oo taariikhi ah isla markaana ay aqoonsan tahay UNESCO, waxaana ka mid ah Lalibela oo ah magaalo dhankooda ka barakeysan oo dhacda mandiqada Amxaarada. Addis Mercato waa suuqa furan ee ugu weyn Afrika, waana mid ku yaala caasimadda dalkan ee Addis Ababa. dalkan waxaa laga helaa 70% buuraha Afrika, wuxuuna xaq u yeeshay in loogu yeero dalkii buuraleyda iyo taagaga. sidoo kale waxaa loogu yeeraa saqafka Afrika maadaama buuruhu ku badan yihiin. Abebe Bikila waa orodyahan Itoobiyaan ah, kaasoo noqday Afrikaankii ugu horeeyay ee Olombikada bilad dahab ka soo hooya 1960kii. meesha ugu horeysay ee lagu daaqaaday miraha kofeega laga sameeyo maaha Brazil ee waa Itoobiya, waxaana iktishaafeen dadka Oromada ah. Itoobiya waxay noqotay dalka ugu faqiirsan, waxayna 3 meelood meel dadka Itoobiyaanka ah quutaan wax ka yar $1, balse kor u kac dhaqaale ayay sameeyeen 20kii sano ee la soo dhaafay, waxaana 4 jibaarmay dadka u dareera dugsiyada hoose. sidoo kale waxaa kordhay dadka hela biyaha nadiifka ah. cuntada aadka loo xiiseeyo ee dalkan waa hilibka ceeriin oo inta badan fajac gelisa dalxiisayaasha dalkan yimaada. meelaha qaar ee Itoobiya ee dhaqanku ku dambeeyo waxaa lagu arkaa dad gishta faruurta hoose wax u egjijin, waxayna u arkaan arrintan qurux gooniya, yacni waa make-upkooda. 80maadkii waxaa ku dhufatay abaar daran oo si degdeg ah u dishay 400,000 oo qof, waxaana abaartan guud ahaan ay galaafatay dad ka badan 1 milyan. mandiqada Dolol ee dhacda dalkan waa halka ugu kulul wejiga dhulka, waxayna isku bedeshay meel laga cabsado maadaama ay dadkii oo idilka hayaameen. magaalada Addis Ababa oo loola jeedo ubaxa cusub waa magaalada 3aad ee caalamka ugu dhirirsan, wuxuuna dhirirkeedu gaarayaa 8,000 feet marka la eego dusha sare ee badda. yeyda la yiraahdo yeyda Itoobiya iyo daanyeerka Baboon waxaa laga helaa oo kaliya Itoobiya, mana laga yaabo inaad ka soo hesho meel kale oo caalamka ah. dadka dhaqanka ku dhagan ee dalkan waxay caruurta mataanaha ah ka aaminsan yihiin nasiib daro, halka qaarkood ay aaminsan yihiin inay yihiin makhluuqaad shar ah. qawaaniintii hore ee dalkan waxay isku si uga mamnuucayeen dumarka iyo xayawaanada inay galaan goobaha lagu cibaadeysto ama dhankooda ka barakeysan. dadka Itoobiyaanka ah kala bar waxay ka yar yihiin da'da 15 sano, balse waxay celcelisaan ama average ku geeriyoodaan, gaar ahaan ragga 48 sano, halka haweenku ku geeriyoodaan 50 sano. xogtan ayaana Itoobiya ka dhigaysa dalka ay ku nool yihiin dadka ugu cimriga gaaban caalamka.
1942 dalkan in la is adoonsado waxay ka ahayd sharci. markii ugu horeysay ee hotel laga hirgeliyo dalkan waxay ahayd 1898 walina waa mid shaqeynaya hotelkan. waxay sheegaan in 2 jeer uu ku duulay Talyaaniga si uu u gumaysto, sidoo kalena ay jebiyeen 2 jeerba. Itoobiyaanka waxaa la sheegaa in ay duugaan ama ay qariyaan in la gumaystay. meelaha qaar ee Itoobiya waxaa laga digaa in la quuto maalmaha Arbacada iyo Jimcada waxyaabaha ay soo saaraan xayawaanada. waxay sheegaan 2013 in wadanka Itoobiya gaar ahaan deegaanka ay canfartu degto in laga helay qalfoof dadeedkii ugu cimriga weyneed taariikhda noolaha, taasoo loogu magac daray Lucy.